haddaba marka aad telefoon aad dirayso ama marka aad telefoon aad qabanayso waxaa had iyo jeer aad iyo aad muhiim u ah in jumlooyinkani aad adeegsato so insha Allah jumlooyinka ayaan insha Allah la wada kormareynaa si fiican insha Allah inaad ii dhuuxi doontaan ayaan rajaynayaa oona aad adeegsan doontaan waqtiyaadka aad rabtaan inaad telefoon aad dirtaan ama inaad telefoon aad qabataan let's go on good jumlada ugu horeysa waxa ay leedahay can I speak to John please can I speak to John please John ma la hadli karaa fadlan okay John ma la hadli karaa fadlan so adiga markaas magaca aad rabtid baad isticmaalaysaa jumlada xigto I would like to speak to John waxaan jeclaan lahaa inaan la hadlo John I would like to speak to John waxaan jeclaan lahaa inaan la hadlo John jumlada saddexaad I will put you through waan kugu xiriirinayaa hold the line hawada ku sii jir please fadlan markaad rabto inaad qof intuu ku soo waco oo qofkii uu rabay aadan ahayn oo aad rabto qofkii inaad telefoonka aad ugu geyso oo kale ayaad adeegsan kartaa waxaad leedahay marka I will put you through waan kugu xirayaa ama waan kugu xiriirinayaa hold the line hawada ku sii jir please fadlan okay jumlada afraad I will connect you now hadda ayaan kugu xirayaa ayadana waad dhihi kartaa is a good sentence I will connect you now hadda ayaan kugu xirayaa yani qof kale buu qofka rabaa qofka telefoonka soo wacay adigana matid qofkii saxad ahaa so waxaa leedahay in qofkaas haddan kugu xiraya ama haddan telefoonka kugu geynaya so you will say I will connect you now good jumlada shanaad I'm sorry he is on another call I'm sorry he is on another call waan ka xumahay call kale ayuu ku jiraa hebel ma jooga hebel aan rabaa inaan la hadlo I'm sorry waan ka xumahay he is on another call kale ayuu ku jiraa is also a good sentence good I'm sorry he is not available at the moment I'm sorry he is not available at the moment waan ka xumahay hadda lama heli karo he is not available at the moment maybe qof kale raadinayay so qofkii waa maqan yahay baad rabtaa inaad dhahdo ama qofkii lama heli karo so that's the right sentence to use you say I'm sorry he is not available at the moment good jumlada xigta aad isticmaali kartaa waxaad dhihi kartaa please call back later please call back later fadlan waqti kala soo wac please call back later sidoo kale waa jumlo wanaagsan oo aad isticmaali karto marka aad rabto ama inaad telefoon aad waqtiyaadka aad telefoon dirayso ama telefoon aad qabanayso is a good sentence to use good could you ask him to call me could you ask him to call me fadlan ma u sheegi kartaa si uu aniga ii soo waco could you ask him to call me ma u sheegi kartaa ama ma iigu sheegi kartaa si uu ii soo waco so qof baad soo wacday qofka waa weysa qof kale kaa qabtay so marka waxaa lagu dhahay qofka ma joogo so waxaa rabta inaad tiraahdo marka qofkaas markuu imaado waxaa ku tiraahdaa hebel baa ku soo wacay so this is the right sentence to use you say could you ask him to call me ma iigu sheegi kartaa si uu ii soo waco good jumlada xigto would you like to leave a message would you like to leave a message ma jeclaan lahayd inaad wax fariin ah aad reebto would you like to leave a message ma jeclaan lahayd wax fariin ah inaad reebto maybe qof baa ku soo wacay qofkii uu rabay waa maqan yahay so marka waxaa rabta inaad tiraahdo qofka waa maqan yahay wax fariin ah ma u dhaafaysaa would you like to leave a message wax fariin ah ma jeclaan lahayd inaad wax fariin aad u dhaafto so also is a good sentence to use good weli waa socnaa who is speaking yani tusaale ahaan qof baa qadka soo galay qofkii telefoon ka qabatay so waxaa rabta inaad magaciisa aad ogaato so waxaad dhihi kartaa who is speaking yaa la hadlayaa ama yaa qadka ku jiro who is speaking okay so qofka markaasuu ku sheegayaa oh I'm Omar calling you from that and that yani meeshaasan kaa soo wacaya I'm Omar calling you from Greenways Academy I need that and that waxaasaan u baahanahay markaas okay yeah ama waxaad dhihi kartaa who is calling please yaa waa qofka qadka ku jira oo soo wactamaya please fadlan okay so markaas qofka ku sheegaya faahfaahin iska bixinaya magaciisa meeshuu joogo iyo waxa markaas uu rabo okay good can I have your name please can I have your name please magacaaga ma ii sheegi kartaa fadlan qofka ku soo qofka ma garanaysid so harta inaad details ka ama faahfaahintiisa aad ka qabato can I have your name please magacaaga sheeg fadlan okay good that's a good sentence to use who am I talking to yaa la hadlaya who am I talking to who am I talking to qofka telefoonka qabatay then qofkii marka maybe ama xafiis ama meel buu soo wacaya
so qof karta qofku yahay ina ogaato so waxa dhigi kartaa who am I talking to yaa la hadlaya yeah I am yani markaas qofku magaciisa markaas uu sheegaya I am Omar and I need that and that waxaan u baahanahay ama qofkaas muu joogaa all that okay good it is Mary speaking yani hada kuwan jawaabaha kamid tahay okay tusaalahan who am I talking to ani yaa la hadlaya it is Mary speaking qofka kula hadlaya waa Mary okay are you together good jumlada kale aad isticmaali karto waxay tahay is it convenient to talk at the moment miyay habboon tahay inaan hadda aan kula hadlo is it convenient to talk at the moment miyay habboon tahay in wada hadal aan sameyno right now yani at the moment haddeertaan so also is a good sentence to use sorry you must have the wrong number tusaalaha qof baa soo dhumay so qofkii soo dhumay marka waxaa rabta inaad tiraahdo waa soo dhuntay so waxaa markaas sorry waa ka xumahay you must have the wrong number numberka aad sidatid ama aad soo qaadatay waa number qaldan sorry you must have the wrong number good mid xigto sorry I think you have dialed the wrong number tusaalaha waa tii hore mid lamid oo kale waaye laakiin si kale loo dhigay sorry waa ka xumahay I think waxaan u malaynayaa you have dialed in aad soo garaacday the wrong numberka qaldanaa so luqadda ingiriisiga way tiro badan tahay hadba saad rabtid u adeegsan kartaa jumlada u samayn kartaa so marka jumlooyinkan waxay ka caawinayaan in ay ku siiyaan fursado tiro badan oo aad isku soo bandhigi karto iyo ereyooyin badan oo aad adeegsan karto kuwaasoo markaasi in ku hadalkaaga uu fasiix noqdo good waxaa kaloo adeegsan kartaa hang on for a moment waa good sentence to use hang on for a moment waxaa laga wadaa xoogaa qadka kusii jir tusaalahaan qofka kusoo wacay hebelaan rabaa hang on for a moment xoogaa qadka kusii jir dabcan yani qofkii aad u doonaysaa so hang on it means wait are we together it means like wait for a moment xoogaa sug so it's also a good sentence to use markaas luqadaadina ereyooyinkaas luqadaada horumarinaysaa hang on for a moment are we together good jumlada xigta aad adeegsan karta waxay tahay I am about to run out of credit anigu waxaan qarka u saaranahay kaarka inuu iga dhamaan raba ay u eg tahay I am about to run out of credit waxaan aniga qarka u saaranahay ama aan yani u dhowahay kaarka inuu iga dhamaanayo yani qofka telefoonka loo hadlayo so waxaa rabta inaad koolka aad soo gabagabayso so you can say I am about to run out of credit see you later kaarka ayaa iga sii dhamaanayo is arag dambe what number can I reach you at numberkeen adiga kaa heli karaa ama numberkeen lagugu soo aadami karaa what number can I reach you at numberkeen lagugu soo aadami karaa ama numberkeen lagaa heli karaa yani qof marka aad u baahan tahay jumlada xigto who do you want to talk to adiga yaad u baahan tahay inaad la hadasho who do you want to talk to adiga yaad u baahan tahay inaad la hadasho maybe qofaas soo wactamay qofkii saxda maahan so waa u sheegaysaa marka qofku u baahan yahay good jumlada xigto hold the line please xoogaa hawada kusii jir fadlan hold the line please is also a good sentence to use so you can say hold the line please xoogaa hawada kusii jir good jumlada xigto I have got a very weak signal aniga hawada ayaa iga xun tusaalahaan qofka kula hadlayo so qofkii ma ismaqlaysaan so marka xarafta inaad tiraahdo I have got a very weak signal I'm so sorry so maybe you can talk another time yani waqti kale wada hadli karna hadda hawada ayaa iga xun so it's also a good sentence to use I have got a very weak signal hawada ayaa iga xun ama networka ayaa iga xun marka jumlooyinkaas oo jumlooyin aad iyo aad u wanaagsan waana jumlooyin dhowr ilaa 20 dhowr ah oo ka caawin karo marka aad telefoon aad dirayso ama telefoon aad qabanayso so insha Allah hala practice gareeyo waxayna aad iyo aadna way ku anfici doonaan insha Allah